wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa shaaca ka qaaday in laga helay cudurka COVID-19 kadib markii shalay baadhitaan lagu sameeyay. Wasiirka ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kula hadlay qaybo ka mid ah warfidiyeenka, isagoo sidoo kale fariin u diray cuqaashi iyo madax dhaqameedkii ay wada shaqaynayeen, hambalyana u jeediyay wasaaradda caafimaadka Somaliland, gaar ahaan qaybta ka howlgasha gobolka Sool ama magaalada Laascaanoodba. Wasiirka oo arrimahan ka hadlaya waxa uu yidhi: anigoo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland, waxaan halkan dadweynaha reer Somaliland uga cadeynayaa inaan laga helay xanuunkii corona ama COVID-19 oo aan isleeyahay waa cudur ama waa xanuun runtii aynan ka warla'ayn oo dalka oo dhan iyo caalamka oo dhan 6 bilood 7 bilood oo ugu dambeeyay saameyn ku yeeshay. waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama ay qadarka Rabbi iska jiro inaan noqdo qalabkii ugu horreeyay ee casri ahaa ee magaalada Laascaanood la keenay, qofkii ugu horreeyay ee lagu baaro ee qofkii ugu horreeyay uu ku sheegaba. awal waxaa loo diri jiray meelaha kale ama gobollada kale. xukuumad ahaan aad baan ugu faraxsanahay in qalabkaasi soo gaadho magaalada Laascaanood oo ay dadku hadda haystaan inay isku ogaan karaan inay xanuunsan yihiin iyo inuu saameeyay xanuunkaas. alxamdulillaah, aad iyo aad baa caafimaadkaygu u fiican yahay. wax dhibaato ah oo aan dareemayaa oo badani ma jirto. waxaana ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in ilaahay caafimaad ka siiyo. dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa iyo baani garoobin ama uusan runtii warwerin. aniga oo ah ninkan idin hortaagan oo wasiirka wuu igu dhacay, waqtigu igu dhacay ma garanayo, laakiin waxaa la igu yidhi shalayto ayaa la igu yidhi waa xanuunkaasi wuu positive baa tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku hayaa. wax problema uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka. ilaahay baana awoodda leh, qadarka Rabbi baa leh. sidaa daraaddeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaadhaan, is ogaadaan. markay ugu yartahay dee qofka kalu ka ilaalinayaa ama caa'iladiibuu ka ilaalinayaa oo dee labada bini aadanka waanu garanaynaa sida reeruhu u nool yihiin. ka mas-uul ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan ummadda reer Somaliland qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu bal intii awooddiisa uu taxadari karo uu ka taxadaro si uusan isagana u asiibin, bulshada kalena ugu faafin. mas-uuliyadda ayaana nagu khasbaysaa inaanu sidan yeello, aanu u gudbinno, la wadaagno, maadaama aanu si babliga u noolahay inaanu wixii nagu yimaadana aanu si babliga u sheegno. waan isleeyahay bulshadu inay fahanto xanuunkan inuu soo laba kacleeyey, maadaama aan guddiga coronavirus ka mid ahaa. maalmo dhoweyd waa la isdhigtay, waxaa la yidhi xanuunkaasi Somaliland wuu ka dhammaaday, laakiin hadda waxaa muuqata oo weliba deegaamadan Sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aad u jiro ay jiraan. qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabadda aanu aniga wasiirka Yaasiin ku ahayn intii badnayd runtii waanu soo qabannay. odayaasha waxaan leeyahay iyo dhammaan dadka waan ladnahay, shaqadii waan wadayaa. waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa. waxaan halkan runtii bogaadin uga dirayaa wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiintii heer qaran ee shalayto iyo daraad nala joogay ee qalabka rakibay corona COVID-19. waan isleeyahay qalab casri oo fiican baa la keenay. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd ee ii timid
iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mishiinkii oxygen-ta ii keenay oo yiri bal haddii in case aad wax dareento dhakhaatiirna igu assign gareeyo oo ila joogaan iyagana mahadnaq ballaaran baan runtii u jeedinayaa heer qaran iyo heer gobolba waxaa ila jooga dad aan yarayn oo runtii ama darawalla ha noqoto ama askar ha noqoto ama askar biliiso gobolka lagaga soo kordhiyey ma guriga aan deganahay ha noqoto dhammaantood waxaan amray in la baadho iyo inaanay goobta dhaafin xaaladan cusub ee laga helay wasiirka coronavirus ayaa waxa ay muujinaysaa in corona uu weli ka jiro gudaha Somaliland iyadoo sidoo kalena uu ku soo noqday qaybo fara badan oo ka mid ah wadamadii uu ka jiray ee dunida.